السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa meel kastoo ka joogtaan daafaha caalamka. Ramadaan mubaarak kusoo dhawaada youtube-keena badiyo bari channel. wararka caawan idiin hayno Mareykanka, Canada iyo Yurub, Afrika iyo wararka Soomaalida. qodobada wararka ugu doorka roon madaxweynaha Israa'iil oo imanaya Ethiopia, midowga Yurub oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed Yurub, Mareykanka oo sharar ku qabanaya Mareykanka iyo wararka kale. qodobada haddaan intaa idinku dhaafo wararkii oo faahfaahsan. madaxweynaha United States Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu Washington ku qabto kulan caalami ah oo loogu magac daray Board of Peace. kulankan ayaa la filayaa inay ka soo qayb galaan in ka badan 20 dal, waxaana diiradda lagu saari doonaa dib u dhiska iyo nabadeynta Gaza. dhanka kale, magaalada New York ayaa maanta laga soo sheegay heer sare wasakh hawadeeda ah, taasoo khatar ku ah dadka xasaasiga ah sida carruurta iyo waayeelka. dhanka kale, sidoo kale madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog ayaa lagu wadaa inuu toddobaadka dambe booqasho hal maalin ah ku yimaado Ethiopia, halkaasoo kula kulmi doono ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed. dhanka kale, wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil Gideon Saar ayaa u ambabaxay Mareykanka si uu uga qayb galo kulanka guddida nabadda. dhanka kale, dalalka Yurub Union ayaa maanta diiradda saaraya arrimaha amniga iyo dhaqaalaha iyo siyaasadda bulshada. ma jiro war gaar ah oo ka sarreeya wararka guud qaaradda maanta. dhanka kale, midowga Afrika Union ayaa ka wada hadlay xaaladaha amni iyo xasiloonida qaaradda, gaar ahaan dalalka ay colaaduhu ka jiraan. Ethiopia ayaa weli ku jirta dalalka raadinaya marinbadeed biyood, iyadoo wadahadallo diblomaasiyadeed ay ka wada hadlayaan dalal dhowra. dalka Suudaan, xaalad bini'aadnimo ayaa ka sii daraysa, malaayiin qof ayaana u baahan gargaar degdeg ah, halka Nigeria ay sheegtay inay xoojinayso dagaalka ka dhanka ah kooxaha hubaysan ee waqooyiga dalkaasi. wararka ka imaanaya Soomaaliya, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sii wada howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda gobollo dhowr ah. Muqdisho waxaa socda kulamo siyaasadeed oo la xidhiidha doorashooyinka iyo khilaafka siyaasadeed, halka warar amni ay ka imanayaan gobollo kala duwan. sidoo kale, qoysas ay saameeyeen abaaro iyo roobab ayaa u baahan gargaar degdeg ah. sidoo kale, wararka ka imaanaya weli Soomaaliya, saaxiibkay ayaa noo yara falanqaynaya in da'da 40 wixii ka hooseeya aanay Soomaaliya ka noqonayn wasiir iyo madaxweyne toona, oonay siyaasadda ka qayb geli kareen si kastoo qofku u leeyahay aqoon, balse da' lagu xidhayo. sidaa saaxiibkeen. dastuurka cusub ee Soomaaliya ee Xasan Sheekh Maxamuud bedelanayo yaana oran dastuurka Soomaaliya, dastuurka Xasan Sheekh Maxamuud aan dhahay, waxaa ku qoran qof 40 sano ka yar ee Soomaaliya madaxweynena kama noqon karo, wasiirna kama noqon karo. okay, waxaa cajiiba marka, yani hada waxa weeye waxaa lagu qiimeynayaa qofka da'diisa, laguma qiimeynaya aqoontiisa, laguma qiimeynaya shaqadan ma u qalmaa, laguma qiimeynaya khibraddiisa, ee waxaa lagu qiimeynayaa da'diisa. tusaale ahaan, Soomaaliya hadda waxaa wasiirra ka ah Cali Xoosh iyo Fiqi, waa niman odayaaloo yani da' kuma yara, laakiin mid xitaa dugsi hoose dhexe dhammaystay kuma jiro. Cali Xoosh sida aan taariikhdiisa ku hayo, waxbarashada dugsiga hoose dhexuu ku dhacay, waa ka haray. Fiqi laftirkiisu askari buu ahaa oo xitaa dugsi hoose dhexe ma dhigan baa la leeyahay. Cali Xoosh baa dhaama oo dugsi hoose dhexe dhigtay. labadooda xitaa midna dugsi sare ma dhigan. waa wasiiro. wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda difaaca Soomaaliya bay wasiirra ka yihiin. marka bal aqliyadda ka warrama, Cali Xoosh iyo Fiqina wasiirray noqonayaan. wiilka ama gabadha aqoon-yahanada ee Soomaaliyeed ama shahaadada jaamacadeed haysata ama digriga haysata ama masterta haysatana hadday 40 sano ka yar tahay
ma noqon karto ama ma noqon karo wasiir bal idinku caqliga ka warrama bal Soomaaliya idinka ay weydiinayaan caqliga ka warrama dhalinyarada waxaa lagu dhiirigelinayaa inay tahriibaan sababtoo ah hadday madax noqon lahaayeen hadday wasiir noqon lahaayeen waxaa la leeyahay si kastoo wax u baratid si kastoo khibrad u leedahay si kastoo shaqo u qaban kartid wasiir ma noqon kartid haddaa 40 sano ka yartahay micnaheedu waxa weeye Soomaaliya jaanis siyaasadeed kaagama furna haddaa 40 sano ka yartahay aqoontaa rabti lahaw khibraddaa rabti lahaw يعني waxaa rabti lahaw laakiin 40 sano haddaa ka yartahay aad master ama PhD tahay Soomaaliya wasiir kama noqon kartid ummadda Soomaaliyeedna uma shaqayn kartid laakiin Cali Xoosh iyo Fiqi oo aan dugsi hoose dhexe xitaa dhamaysan oo weligood dugsi sare xitaa waxbarashada ka gaarin wasiiray noqonayaan oo waxa hoos imaanaya u fiirsada waxa hoos imaanaya dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka aqoon badan oo ka khibrad badan bay madax u noqonayaan waa dastuurka cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud marka Soomaaliya idinka ina weydiinayaan ka warrama wararka ka imaanaya Somaliland fadhigii 54aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Somaliland ayaa maanta ka qabsoomay qasriga madaxtooyada Somaliland shirka waxaa shir gudoominayay madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro waxaana وهليني مدحونا كحجين كمحمد علي عبدي قلها وسيرده وحي كضودين حالد أمنيين نبتقليده arrimaha dhaqaalaha iyo adeegyada bulshada horumarinta hay'adaha dawliga ah iyo qodobo la xiriira dawlad wanaaga dhanka kale diblomaasiyadda xukuumadda Somaliland ayaa war-saxaafadeed dhexdeeda ku soo saartay hadallo dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Turkiga iyadoo ugu baaqday ixtiraam madax bannaanida dalalka iyo yareynta hadallada keeni kara xisad goboleed sidoo kale wargeyska Itoobiya ee The Report ayaa sheegay in madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan uusan ku guuleysan inuu ku qanciyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu si cad uga hor yimaado aqoonsiga Somaliland Cabdisalaam Brown baa uu inoo falanqeynaya ceebtii kaga dhacday ra'iisul wasaaraha Turkiga Imaaraadka Carabta bal daawad Cabdisalaam oo inoo falanqeynaya maalintii axadii ay ahayd markii aan idin la wadaagay in dalka isku taga Imaaraadka Carabtu uu u gambiyay oo uu u jaray ballantii uu lahaa ninka loo yaqaano Erdogan waxaana la sheegay inuu xanuunsanayo iyadoo oo dadka reer Soomaaliya iyo kuwa Turkiguba ay yiraahdeen ku dhimo xanuunka ku haya Sheekh Nahyiino iyadoo la hadlaya madaxweynaha isku taga Imaaraadka Carabta okay maanta haddaba waxa la kulmay ninka loo yaqaano xildhibaan ka tirsan Kongareeska dalka Mareykanka ayaa isagu la kulmay oo kulan muhiim ah la qaatay ninka loo yaqaano Sheekh Nahyiin waxaana uu sheegay inuu caafimaad qabo weligiina isagoo sidaas u faraxsan aanu arag haddaba arrintan ayaa noqonaysa wajigaba siyaasadeed oo uu la kulmay ninka ka arrimiya dalka Turkiga ee filinkiisa la fahmay dalka isku taga Imaaraadka Carabtu waxyaabo badan buu u qabtay guud ahaan wadamada muslimiinta ah halka Turkigu kaliya uu isagu ka faa'iido daawadayaal war waxaan caawidinahay waan nageynta tan iyo intaan dib u kulmayno habeenimo wanaagsan akhyaartana daawanaysa Ramadaan Mubaarak like tiyo share tiyo comment subscribe saar please habeen wanaagsan bye